الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ليال شلي بشهر رمضان بانو سoo galnay qof kasta wuxuu oranayay bari waa Ramadaan waa labo waa saddex maantana hadda waxaanu galeynaa tobankii dambe waa sidoo Allah subhanahu wa ta'ala yiri oo ayaaman macduudaat waa maalmo aad u yar oo la tirin karo maalmahaas qofkii ka faa'iideysto khayr badan buu ku sugan yahay qofkii ay dhaafaana khayr badan baa dhaafay oo waa uu khasaaray nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi wuxuu yiri man hurima khayraha faqad hurim qofka khayrkeeda laga qadiyo oo waayo qofka waa khasaaray wax badanna waa khasaaray walaalayaal habeenadan hadda soo socdo tobanka dambe ah nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi sida Aisha leedahay ay noo sheegtay radiyallahu anha wa an abiha as-siddiq waxay tiri kaana yuhyi laylahu habeenkiisa waa nooleyn jiray nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi wa yuqidu ahlahu reerkiisana waa kicin jiray ويشد مئزره هزقنتي سنة ودوجن جري معنوه وحوي نبي صلوات ربي وسلام عليه بينك سوانو لين جري او صلاة بكونو لين جري مسيحا جرين استغفار ذكري الله سبحانه وتعالى قرآن أخرس دعو انت بأيو كونو لين جري نبي صلوات ربي وسلام عليه انت كلية ما أهن reerkiisa ayuu kicin jiray oo xaasaskiisu kicin jiray man yuqidu sawahibul hujurat ya kicinaya gabdhaha qolalka ku jira oo khayrkan ay ka faa'iideystaan waa uu kicin jiray nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha ahlkaada salada amr oo khayrka far kaligaha soo kicin oo guriga ku tukan ee xaaska kici عرورته انت قانقارته كعي انت حوغا wax kala garanayso kici hala tukado habeenadan oo khayrka iyo wanaaga iyo dhikriga Allah subhanahu wa ta'ala guriga ka muuqdo ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kuwina iimaanka laga helo nafifyaalkiina iyo ehladiina waxa way ilaalisaan naarta ka ilaaliyo oo naarta waxaad uga ilaalinaysan waa dacwada يا خيرك يا غوريغا انو نقدو غوري مسلم وناكسن ما اها كليا odayga inuu soo kaco oo salaatu leel kaligiisa tukado habeenadan kadibna uu iska seexdo ama masaajidka uu soo aado nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi tobankan habeen aad buu u weyneyn jiray tobankan habeen muxuu nabiga u weyneeyay waxa ku jira laylatul qadr ba ku jira laylatul qadr wama adraka ma laylatul qadr habeenka laylatul qadr ayaa ku jiro tobankan habeen maxaa ku ogeysiye laylatul qadr khayrun min alf shahr weeye waxay ka khayr badan tahay bilood bay ka khayr badan tahay macnuhu waxa weeye waxay ka khayr badan tahay cimrigaadoo dhan laylatul qadr maxaa loogu bixiyay laylatul qadr علماء وحي لدن قاركود لعظمها وجلالتها لأنه وهبين آد ويه وهبين الله سبحانه وتعالى ويري هبين كسحو كفضل بدنها يا عمري قابضا وسديتن يسدح سنة وهبين آد وين عبادة آد سميصو صلاة آد تكتو وحي كفضل بدنتها سديتن يسدح صلاة آد تكتو خير من 1000 شهر وحيرة علماء كلي ليلة القدر لأن تقدر فيها الأرزاق وما انت لقدره سنتك هبينك لقدره رزقيا وهبينك لقدره وحوي أحواش دتك يا أمورت يا لمن دون يا نولان دون الله سبحانه وتعالى هبينك سوية سياسة لو وبحية ليلة القدر ليلة القدر وحا لو وبحية لرسيدو كلي
تضييق الدنيا أي وحا عرير سوما وحا عرير نقنايو الدنيا ذا أي عرير نقنيسا محي عرير نقنيسا لأنه وحا سود دقايو ملائكة رنبا سود دقايسو مركاسي وحا وي الدنكو ننقب سنايان انتاس وحا الله شيء وانت سورة قصة أرورتاه وحا الله شيء وحا وي وينين تلوينين هبين كاس قفي كسيح ذا مركا كورما أما ينادى حوغا واسكسو تكنا يا قلبي سنة أوسن جوجين وفرصة أدلة هاي عمري أضوطن إن أتكفى إذا ستو والدعاء آد إلا سبحانه وتعالى كبر إذا يوحى إلا سبحانه وتعالى كدونيسو ما ننتهدو إلا سبحانه وتعالى كأقبل خير باكو سوغنتاه هبينك إلا سبحانه وتعالى هدو النار تكوح كاحريو خير بضن باكو سوغنتاه ليلة القدر خير من 1000 شهر الله سبحانه وتعالى هبينك يوكو نافل وهبينك ليلة القدر مقور قورتا مسوى هل هبينك ليه نبي صلوات ربي والسلام عليه ولو الشيء ليلة القدر هبينك اتحي لحكمة بالغة حكمة آدو حلدير أيها النبي مرك الله الشيء هبينكاس أيو صوبحي مركو صوبحي وحو أرك اللبن يتلاحيان أو يتخاصمان لبن أو إسهاستا أو مرمايو مركز النبي عليه وسلم وحجري فأنسيا أو النبي عليه وسلم وله المامسيي هبينك أهد وحجري وحد كرر لسان ل7 بقين ل9 بقين سقال مكي هرسنتهاي مكي تضوها هرسنتهاي مكي شن هبين هرسنتهاي كفيرية حديث كلنا وحوها وحا كأكتان هبيننا ترضى إسلاف وترقى كأيغا وتوبن هبين صدح بقول يقول لحظا هبين باهي ستا توبن هبين مياد الله سبحانه وتعالى درتي أسوكعي كرين توبن هبين oo adiga ku anfacaya adduunyada iyo aakhirada miyaadan dadaali karin toban habeen miyaadan cibaadada ku dadaali karin dambi kasta aad gashay la taqnatu min rahmatillah allah subhanahu wa ta'ala naxriisiisa ka quusan habeenada dadaal oo alle bari oo ducada badi habeenadaas qofkii dhaafaan waa qof khasaaray waa qof qaflad qalbigiisa ay ka buuxsamatay waa qof aan war u hayn meeshu u socdayo meeshu ka socdo ducada marka ducaysanaysid kaliya ha ku ducaysan adduun ilaahu meesha igay ilaahu sponsorka ii fududay ilaahu xoolo isii ilaahu caruur isii inta waa adduunyo sax ku ducayso ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق تدوحات جربوا يا الله سبحانه وتعالى وحكم من ضدك قار الدنيا كلي يكون دعيسته لكن دعاء آخرة وحنصيبكم الله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ضدك وحكم ضد الدنيا دنا إلهي سبحانه وتعالى كبر يا آخرنا بكبر يا نار تنضها إله نار تنجبت بادي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إله قفك نار تجلسي وأدهوجي ربيو هدي إلهي نار تأوكو قل يدونك محوكو ترايا هدي آخر نار تجلس محو أدونك كو ترايا لذلك الدعاء هذا وهريسو هات اللهم اعتقنا من النار إله نار تيجحري إله نار تيجحري إله إيدا بالأف تاسوي تنوو مهم سنين الله سبحانه وتعالى تكبر ذو انت كلوا وحي سهلا ويل ولا ليال وحصلنا الاعتكاف اعتكافك نوحل إلى ذا المكوث في المسجد مسجد كإنا كنا جاتو أذيقوا وحوي كفغانا وحكستو لغوي إيه حدث إيه حمان أذو وحوي كفغانا إن أد اعتكافكم مساجد كأتكون نجاتو دمر إيه رقبة ولو أقول يهي اعتكافكم وحو بلا منايا وحوي غروب الشمس قرح ذا مركز دعوة مالين تلباتناد هبينك كوي لباتناد لقلايو أيو مركب بلا منايا هبينك إيد إسوغري سنة مغربك أيو اعتكافك كو إجي هاي اعتكافكو
nebiga waa ammaanay ilaahay inaa u go'do weeye ictikaafku waa inaad ka fogaataa adduunyada iyo waxyaabaha ee ma aha ictikaaf baan ku jiraa telefoonna waan wataayo whatsapp iyo meelo kale aan galayaa ictikaaf baan ku jiraa waxaan kala dejinayaa intaasoo shay ictikaaf baan ku jiraa weli sheekooyinka ictikaafka waxa weeye inaad u go'do cibaadada alle subxaanahu wa tacaala oo xoogaa waqtigaada aad waxa waa alle la qaadato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad barido oo dib aad u xisaabtanto oo qalbigaada dib aad ula sheekaysato aad tiraado intee ku suganahay ma khayr baa mise shar allaha noo dambi dhaafo sidaa daraaddeed walaalayaal ictikaafka qofkii awooda oo dadka masaajidada ay u furan yihiin in la ictikaafo waa sunna ee asagana aan ku dadaalno walaalayaal tobankan habeen waa toban barakaysan weeye qofkana in uu ku dadaalo cibaadada iyo khayrka iyo wanaaga sidoo kale inuu xisaabtamo muxuu ka soo tegay oo dembi ah muxuu sameeyey sanadkan ayaduna waa muhiim dalkana ha loo duceeyo tobankan habeen dalka ha loo duceeyo waayo ducadaad haddaad muslimiinta u ducaysid ama dalka aad u ducaysid waa ummad islaam ahe malag baa ku ag fadhiyo ku ag joogo oo leh walaka bimilin haddaa walaalkaa u ducayso can dahri lghayb ilaahu muslimiinta oo dhan u dembi dhaaf malag baa wuxuu leeyahay allow asagana u dembi dhaaf ilaahu muslimiinta khayrka waa faji malag baa wuxuu leeyahay ilaahu khayrka waa faji ilaahu hebel ubad ma laha ubad sii malag baa wuxuu leeyahay ilaahu asagana ubad fiican sii ilaah wixii aad alle subxaanahu wa tacaala ka barido malag baa oo waxa weeye aad muslimiinta uga barido malag baa ku ag taagan oo leeyahay walaka bimithli adigana sidaas oo kale haddii qof saalix oo wanaagsan aad ku og tahay salaax aad ku tiraado ii duceey uu kuu duceeyo soo farxi maysid ka waran maka malag hadduu kuu duceeyo ka u duceey walaalaha oo qalbiga waasic ka dhig oo qaraabada u duceey oo waalidka ha hilmaamin oo ubadka u duceey oo ducadu waa silaaxul mu'min ducada waa hubka qofka mu'minka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ducuuni astajiibu lakum war aniga ii barya ee ducada habeenadan ha hilmaamin waddankan ha loo duceeyo xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad la yaab leh oo loogu talagelin dad muslima inay ku sugnaadaan dadka muslimka ah waa dad caqli leh waa dad ismaamula dad maaha intay istaagaan dhaha annagu waxaan ka sugaynaa beesha caalamka waxayna tiraado war muslim baa tahay ilaahay caqli buu ku siiyey xikmad buu ku siiyey diin buu ku siiyey kullu shay waxaad u baahan tahay siyaasad iyo wax kasta qur-aanku kugu qoran yahay farudduuhu ila allahi wa rasuulih ilaahay subxaana wa tacala iyo rasuulkiisa u celiya arrinka war diintu maxay ka qabtaa diintu ma aha wax ka banaan waxa weeye siyaasadda ama nolosha siyaasad nolol caafimaad wax kastaba diinta ku jirto laakiin nasiib daro markaan diinteena ka tagnay xaalkaasaan ku sugannahay fariinta ugu horeyso waa siyaasiyiinta iyo musharaxiinta ilaahay subxaana wa tacaala ha ka baqaan midda ugu horeyso midda labaad waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala xukunka iyo mulkiga qofkuu doonuu siiyaa wuxuuna amray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh shariicaduna ina amraysaa in qofku uu hormariyo danta guud ka hormariyo dantiisa isaga maxaa maanta loo doodayaa loo murmayaa oo dadku waxa way u dhammaanayaan ma dan guudba mise waa dan shakhsi ah taa haddii ay kala ogaadaan khayr bay ku sugan yihiin lidaalika islaamka qofka ma soo saaree waa la doortaa ilaa fi xaalaatin qaliila qofka la dooranayana waa qof xikmad iyo salaax iyo wanaag iyo khayr lagu ogyahay oo ummadda ay tiraa war qofka waana maamuli karaa laakiin alle subxaanahu wa tacaala huwa almustacaan ilaahay umbaan gargaar ka dalbayna xaaladda ku sugan yihin dadka u taagan inay dalka maamulaan dalku waa dal hadda ugub ah dadku waa islaayeen qabyaaladu qalbigooda ku dhowdahay wax yar hadday dhacaan hal mar bay kala goosanayaan jeish baa kala goosanayo wax kalaa dhacayo waxaa loo baahan yahay xikmad aad u badan marka ilaaha ka baqaan kow midda labaad waxa waye fariinta labaad waa dadweynaha dadweynuhu
siyaasaddu ma aha arin lagu falanqeeyo meelaha iyo fadhiyada ama fadhi ku dirirka waa cilmi waa dadaal waa wax u baahan qofka inuu ka fiirsado laakiin anagu haddii aan ku taageerno qabiil ama aan ku taageerno fulaan baa sidaa ah ama aan ku taageerno anigu hebel waa necbahay taa waxba nagu soo kordhin mayso waxa wax nagu soo kordhinayo xaqa inaan raacno oo aan dalkana u ducayno qofkii khaldanna la yiraahdo waa khaldan tahay mucaarad iyo muxaafadba qofkii khaldan waxa waaye inuu leeyahay waa khaldan tahay adigu inaad muxaafad noqoto ma ilaahay baa xagga fawqa sab'a samaawaad ka soo deji inaad mucaarad noqotona ma fawqa sab'a samaawaad bay ka soo dejin waa maya laakiin maslaxadda in la eego danta guudna la eego oo waxa waa dalka la eego maxaa guud noo ah anaga ee ma aha aniga maxaa ii fiican iyo maxaa anaga reer hebel noo wanaagsan iyo reer hebel maxaanu helnay ma aha fariinta saddexaad waxa weeye culummadu waa dadka hogaamin lahaa cilmiga alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey xikmadda alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey in waxa dhacaya dalka ka dhacaya laga fiirsano oo manaabirta laga fiirsado sax ma ah ee waxa weeye in la dhaxgalo oo loo naseexeeyo oo loo tago oo shirarka laga qayb galo oo loo yeero siyaasiga cirka kama soo dhicin oo waa bulshada oo waa dadka lala fariisto oo loo naseexeeyo codka culummada inuu soo kaco weeye oo kor u soo baxo si kan dulmiga wada uu ogaado in laga dambeeyo kan rabo gardarada inuu sameeyana la ogaado dadkoo dhanna dumar rag dhalinyaro in la isqabsadaa loo baahan yahay dal maanta failed state lagu waxa weeye magacaabo yacni dalka dal jira ma aha basboorkeena meel aan ku mari karna ma aha ma laha annagiibaa qaxooti ah dalal kale ayaan ku cararaynaa welina waan ishaysanaayo annaga waxaan inay reer hebel dalkan waxaa ku nool Uganda maalan waxaa ku nool ilaa 40 qabiil iyo ka badan baa ku nool 35 sano la soo dhaafay hal qabiil hal reer hal nin baahayo laakiin waa aqbaleen waxay u aqbaleen danta guud doorasho timaado asaga ku soo baxo waa tahay xoogaa baa la qayliyaa waa la socdaa jeeshka dadka la ku jiro laakiin dadku waxay ogaadeen khayrkooda iyo wanaagooda maanta basboorkooda meel kasta ku marayaan dawlad ahaan dawladda ka muhiimsan waxa shakhsiga ah wadanka Saudi Arabia fiiri hal qolo hal reer baa 200 sano maamulaysa laakiin maca dalika wax kasto jiro oo wax kasto oo dhaco way salimeen way danta guud ba eegeen aanu eegno khilaafa islaamiga markay dhacday oo khilaafadii waxa weeye raashidi ee baxday dawla umawiya timid waa reer dawla abbasiya timid waa reer dadkii culumadii waa sabr waxa la yiri bal aanu eegno waa lagu qabsadaa wixii shar ah wixii kalena waa lagu qabsadaa laakiin maca dalika dadku waxay eegayaan war danta guud maxay tahay anaguna mar waxa soo dhan wali maanu aqliyeysan 30 sano waxaan leenahay hebel baa khaldan hebel wuxuu rabaa inuu nagu taagnaado allah noo dambi dhaaf dalka loo duceeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dalku markuu dhisan yahay dadku asturan yihiin dalka markuu kala baxshalay ama daraad wixii dhacayo yar waa la arkay waxa dhacay barakaca dhacay dadkoos waa asturnaayeen quudkooda heli jireen laakiin xoogaa yaro qallaasa dhacday wixii dhacay waa la arkaya waxaas way dagaalka iyo amni darada waxa noo keena waxyaabahaas ilaahay subxaanahu wa tacaala noo yasiro masheekadu ma marayso xaafid iyo mucaarad sheekadu waxay maraysaa war dalkan anagu say u istaajinaa maanta waan la dhex joogaa Yamamoto iyo rag baa meesha fadhiya oo ay leeyihiin dadkan aanu eegno isma maamuli karaane bal anaga waxa way maamulana intay iska maamuli karaan la ilaaha illa allah allah noo dambi dhaaf marka ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo dad aqli leh oo waxa way isu sabra oo noqdo dad danqada oo waxa way wadankoodana u shaqeeya oo u istaaga